casharka aan rabo inaan ardayga gaarsiiyo waa cashar sidee ah casharka aan ardaydeena gaarsiin rabno 6 qodob waa inaan ka helnaa 6 qodob casharka maanta aan dhigayno inuu 6 qodob oo asaasi ah ardaygeena ku jiraan qodobka ugu horeeya ee macruufka aan ku nahay ee aan naqaano waxa waa qodobka ah adka waxaan barnaa waxyaalo ah xaqiiqooyin facts waxyaalo aan la bedelin su'aalaad weyd waxaad baraysaa shay aan isbedel lahayn weligiis saas ahaa macallin wuxuu leeyahay taariikhda goormo ayuu dhacay dagaalkii reer Yurub ee koowaad dagaalkii reer Yurub ee labaad goormo dhacay reer galbeedka dagaalkoodii sanadkii waa go'an tahay waxaan leenahay dagaalkii Badar goormo dhacay waa wax go'an Soomaaliya goormo ay xornimo qaadatay waxyaalaha soo wax xafid ah kaliya oo qofku qabanayo laakiin waxbarashadeenu ma aha wax mid ay ku dhisan tahay ma aha waa meesha ugu hooseysa ee wax la barto ugu hooseysa qofku inuu wuxuu bartay soo celiyo laakiin waxbarashadeenu noqon aynaysan noqon bangi aan wax dhiganayno ardayga bangigaas hadhowna aan leeyahay waxaygi isii bangiga waxa dhigatay wixii lagu soo bixin doonaa deposit waxa ku xiga wax dhigasho la bixida ka xigta Soomaha shayga u dhiibatay intaana ku dhiibtay inta iga jawaab macallin kasto anaga mid ah waa inuu xil iska saaraa waxa ardaygan uu bartay qodobka ku xiga waxa waaye ee labaad inuu fahamsan yahay mafhuumka conceptiga waxa uu bartay waxa ay yihiin waa inuu yaqaanaa laakiin haddii uu wixii xafidsan yahay meel uu hadhow intii xafid ku ekaabo ku ekaanaya taas ugu muhiimsan waxaana qodobkaas waxbarashadeena fiiriya ma jiraan wax badan maanta macallimiina joogta ma jiraan macallimiinteena wax badan oo aan naqaano oo aan xafidsannahay oo aanan fahamsanayn macallimiin dhowr waxaan weydiiyey seminaaro noocan oo kala ah tababaro noocan oo kala ah waxaan weydiiyey ma dhici kartaa inuu macallinku meelaha qaarkood casharka uu ku adag yahay oo uusan fahamsanayn ardayga wax u dhigtay yar xisaaba u dhigtay waxa u dhigtay jajab qumane barabar farashan in barabar jajab qumane waa sida ma qumane waa sida batri hadhow waa weydiisay qumane waxa waa intii uu sheegay laakiin suuqa wuxuu ka yahay lama yaqaan suuqa bakaara wuxuu ka yahay bilaajo suuq bacaad suuq boocle wuxuu ka yahay wixii ma fahamsana arday kamid ah gacanta taagan macallin wax quman noo dhig waxaan qumanayn ma naga daysi wax aan qumanayn naga daa bari adaaba qumanayna aamus waxa sheegay samxay uu iska baxay subaxii dama hooyadiisa la socotaa timid macallinka wax aan qumanayn dhiga ma adiga macallinka waxa qumanayn aan dhiga ana cunugan lacagan ka dhiibaayo wax quman igu dhig waxa qumanayn iga daa hooyo saas maaha maxaa waaye xisaabta ku fahamsiiso oo tiraahdo wajajab weeyo waxay leedahay sareeye iyo hooseeye haddii sareeyuhu uu yar yahay hooseeyuhu uu weyn yahay ma dhow sareeyo miyaa yar ma ilaahay baa sareeye ah sareeyuhu uu yar yahay oo hooseeyuhu ma dhow waxa waaba ka dartee ma qumanihi baa la qaatee hooyadaas ay u fahamsiin karnaa insaantiisa wuxuu leeyahay haddii aad casharka fahamsan tahay ayaydaa u sharax waa ina ayaydaa fahamsiin kartaa cashar u fahamsan tahay adiga haa ayaydaa fahamsii ama cunug 6 jir ah fahamsii meel kale maxaa ka doonaysaa adiga jajabka koraa kan koraa weyn iyo kan hoosaa weyn maxaa ka fahamsii hooyada waxaa dhihi kartaa hooyo qara 3 loo dhigay 2 qaybood ma leeyahay haa waa gartay qara 3 loo dhigay 4 ma leeyahay maya malaha kana qumana la dhahaa kana ma qumana la dhahaa saas aan leenahay alma sha Allah wiilkay iigu dhig ma qumanaha cunuga iigu dhig
hadda waa la ogolyahay waa ina hooyadaa fahamsiin karaa saas maha waa inaan wax fahamsiin karaa maadadeeni xisaabta wax badanoo aan dhiganayna haddii iska laqaan ilmaheena cunugan waxaan u dhignay xisaabta waxaa dhignaan u malaynayaa xisaab la yidhaahdo jajabka isu dhigma maxaa la dhahaa kusuur mutakaafiya equivalent fraction ardayga waxaa u qortay hal loo qeybiye laba loo qeybiye afar loo qeybiye 8 way isu dhigmaan say isugu dhigmaan xisaab ahaan ugu sheegtay say isugu dhigmaan waxaa tiri kan laba ku dhufo kan laba ku dhufo qawac waa iska xafiday suuqa haddii la taga lama yaqaan xisaabta waa inay suuqa ka shaqaysaa saas maaha waxaa tiri nus wuxuu u dhigmaa laba loo qeybiye 4 hooyadiisa waxay u dirsatay sokor suuqa tago waxaa ii soo gadaabaa la yidhi nus kiilo sokora markuu tegay dukaankii hooyo iska da-aaba joogtay maandhow waxay tiri maxaa nus kiilo sokora maandhow ma hayee 2 rubac ma ku siiyaa hooyo la ima soo dirin wuu ka tegey mid kaloo tegey qof kalaa gadanaya nus kiilo ma hayee 4 tuban ma ku siiyaa maya la ima soo dirin iskoolka markaan joognay iyo fasalka nus 2 rubac ay u dhigantaa 4 tuban u dhigantaa maan ardayga taafsiirna in ay la mid tahay taas haddaan wax sokor aanan haysan maan ciid beegano soomaa saas inuu ardayga fahamsiino nus iyo 2 rubac kalaaskaa lagu jiro xisaab ahaan waa laga shaqeynayaa ardaygii laakiin maxay suuqa ka tahay taas waxbarashadaasi meel ma haysato taas maxay inagu keentay in ay isku dhufashada iskala jaridda isu qaybinta iyo iskala goyntu in ardadeena ay ka badiyaan dadka magaalada jooga haweenta reer baadiyaha naga badisay annaga inteenaan fiiriya maqaayadaan tegeynaa markaan wax cunno inteenaanoo fadhida hal qofaa sheegaya intaas u qabaa ani taydiyaan la yaabanahay waay iyagu iskool ma dhigan caanaheeday shubataa biyuhu gadaa suuquu joogaa xisaabtii adi aad dhiganaysay uu ka jawaabayaa waay annaga u jawaabi weyne ardayaa la weydiiyey kamid idinkaa laidin weydiiyey hadda idin weydiin maayo waxaan ka baqayaa inay ka qaldanto 99 waxay leedahay 99 wallahi 99 waxa igama gelinay 100 iga dhig 100 ku dhufo 900 hal 9 ka jar ma dhamaano tan 100 iga dhig 100 ku dhufo 900 hal 9 ka jar waa dhamaatay waxaan waa dhignaa hormagelinta waxaas waa dhignaa tawsiicu darbi cala aljamci baraakidiyadaas waa dhignaa laakiin waa suuqa wixii yaallo waa haddaan suuqa lagu dabaqin waxna ma suuroobayaan waxay ku ekaanaysaa keliya 9 ku dhufo 1 fasal baan soo galay ilmo yaryar ee dhiganayaan fasalka ilmaha ay dhiganayaan waxaan weydiiyey isku dhufashada ma taqaanaan waa qayliyaa waxaan idhi 3 4 ku dhufo 12 waxaan idhi galaaska dhexdiisa iga tusa 3 4 ku dhufo wax galaaska dhexdiisa 3 4 ku dhufo ma jirtaa hal qof waa sheegi waay isku dhufashada waa xafidsiinay 3 في 3 4 في 4 3 ku dhufo 4 4 ku dhufo koraa laga yaqaano laakiin waxay ka tagtaa lama yaqaano ma la bari weynay 3 kursi oo min 4 lugooda min laba markay tahay 5 qof oo min 2 lugood leh kuraasta mid 4 leh kuwa waxaan weydiiyey soon bay aheede xalay sambuus ma cunteen baa iri oo maxaan kala u soonaa mid baaba yiri maxaan kala u soomaaba waxaa iri isku dhufasho waxaa igu sheegtay meeqa sambuus cuntay 5 waa cuno kulaha isku dhufasho igu sheegaa iri inta geesood ay lahaayeen inta gees u lahaa isku dhufasho igu sheeg sambuuski waa cunay laakiin geesihiisa waa la sheegi waayey maxaan leenahay marka waa inaan sheegnaa hadhow maqaayadaha ku taala iskoolka macallinku waa inuu sambuuskiisa soo gataa ardada la siiyaa sambuusna ay cunaan yaa 10 la fahamsiiyaa soo ma aan dhahnaa 5 lagu dhuuftay 3
shan sambuusa min saddex geesa meeqo 15 gees saa haddii loo fahmo sambuus la cuno casharkaa ma la fahmi waa la fahmay casharkaas laakiin shan saddex waxa ma soconayso waxaan ku iri waxaa ii sheegtaan 5 lagu dhuftay eber wala sheegay 5 eber ku dhufo maaya 5 eber ku dhufaa suuqa geey sambuusihi iyo wixii cunaysan geey waa laga waayay waxaan ku iri waxa ii fiirsan bur ma cunteen ha geesa ma laha maya 5 bur ah oo meeqa geesa eber geesa waa dhawaatay kale intaas la waa gees ma lahayn arday baan galaas joogto dugsi sare dhiganaysa waxaan ku iri ma yaa idin dhiga macallin hebel kal kala saas ku talasa buruda yaa idin dhiga kal kala saas macallina noo dhiga maxay tartaa baa suuqa ka tartaa suuqa fasalku soo gal macallin kal kala u taagay kal kala maxay tartaa baqaaro iyo suuqyada maxay ka tartaa macallinku wuxuu yiri bas waxay tartaa ma taqaana ha biilka ilmahan ku saxaa ku yiri annaga biil waa helaynaa wix ilaahay noo qoro waa helaynaa laakiin waa inay ilmihiina wax bartaan bas ma biil la waayay maaye wax bartaan marka qodobadeena aan sheegaynay qodobka ugu horeeya waxaan dhahnay waa wax in xaqiiqooyinka qofku waranayo factiska qodobka labaad waa inuu waxa fahamsan yahay faham mafhuum yahay kan saddexaadna waa inuu ku dabaqi karo nolosha ku dabaqi karo haddaan nolosha lagu dabaqi karin waxa ma qabanba inta yara aan aqaana baan dabaqo kasoo qaad anuu carabi badan ma aqaan laakiin hal kelmada aan aqaana carabi waxaa la dhahaa tacaal bas aan aqaanaa tacaal aan aqaanaa wax kale ma aqaan waa idin yeera tacaal idinku meesha waa ii timaadeen waxaad tidhahdeen waa ku ognahay carabi kale ma haysee bal meeshii nagu celi waa inay tacaal idin keentaa idin celisaa soo maa saas tacaala idinku keenay iyada idinku celinaya meeshiiyaan tegaya tacaala haddana idin leeyahay haddii tadbiiq haddaan wax dabaqno hal tacaal soo idinkuma celin karo ya tacaal kaalaya haddana tacaal meeshiini ardaygeena waa inu maskaxdaas leeyahay oo fahamsiin karnaa saas ay tahay waxbarashada jeclaysiin karnaa ay tahay inta la jeclaysiiyo waxbarashada oo aad u jeclaysiino baa haddana ka dhigi karnaa qof u diyaarsan waxbarashadiisa